نحن بأنتن وأنتم، نحن بأنتن وأنتم، كلنا بكبير وصغير، مجهودات تتوالى، مشوار سهل لا لا لا. waxaa jirtay meel tuulo ah. meeshaas tuulada ah waxaa joogay nin xikmad badan oo uu Ilaahay siiyay garasho iyo caqli. dadkuna ay u imaan jireen oo ay arrimahooda iyo qorshayaashooda u sheegan jireen si uu u caawiyo. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa u timi haweeney ka cabanaysa ninkeeda oo ka dhib sheeganaysa. ninkii xakiimka ahaa gabadhii si fiican ayuu dhageystay, warkeedii ayuu dhuuxay. kadib waxaa u soo baxday in arrimaha kani aysan ahayn arrimo ay laba qof u kala tegi karaan. ninkii xakiimka ahaa waxa uu go'aansaday inuu gabadhan qaab ficil ah ama qaab waxqabad ah uu u fahamsiiyo. waxa uu ku yiri, haddii aad rabtid inaan arrinkan aan ka caawiyo waa in aad maanta duhurkii ii samaysid qado, weliba qadadaas oo ah bur iyo hilib. gabadhii waxay tidhi, arrinkaas waa ii fudud yahay, insha Allah waan ku samaynayaa. ninkii xakiimka ahaa waxa uu yidhi, waxaan rabaa qadadaas aad ii samaynaysid waxyaabaha ay ka kooban tahay inaad ka soo qaadid dariska, sida hilibku wuxuu u baahan yahay biyuu u baahan yahay, milixuu u baahan yahay, sidoo kale burku wuxuu u baahan yahay saliid, wuxuu u baahan yahay milix, wuxuu u baahan yahay waxyaabo kale. yacni hilibkaas iyo burkaas aan kori ii samee, waxaan rabaa waxyaabaha ay ka kooban yihiin inaad ka soo qaadid dariska. kadib gabadhii waxa ay bilowday in ay alaabta ka soo qaado dadka dariska ah. waxa ay tagtay gurigii u dhowaa, waxaana qaabilay gabadhii ama haweeneydii reerka. waxa ayna weydiisatay in ay siiso saliid. haweeneydii reerka ayaa weydiisay sababta ay u doonayso saliidda. gabadhii ayaa ku dhacday oo u sheegtay qisadii in ay rabtay inay ninkeeda iska furto. kadib ay u tagtay ninkii xakiimka oo magaalada jooga. ninkii xakiimka ahaana uu yidhi, wax tala ah ku sii maayo ilaa aad ii keentid cunto waxyaabaha ay ka kooban tahay aad ka soo qaadqaaday dadka dariska ah. haweeneyda dariska ayaa mar kale weydiisay waxyaabaha ninkeedu uu ku sameeyo. waxa ay u sheegtay waxyaabo ay tahay ninkeygu saan ayuu sameeyaa, saan ayuu sameeyaa, saan ayuu sameeyaa. kadib haweeneydii ayaa iyadana u sheegtay oo tiri, ninkaaga waa fiican yahay, ninkeyga ayaa ka daran oo wuxuu sameeyaa sida tan iyo sida tan iyo sida tan. yacni waxa ay sheegtay waxyaabo ka daran waxyaabihii ay iyadu sheegtay. haweeneydii saliiddii ayay iska qaadatay waana ay tagtay. haweeneydii socodkii ayay sii waday. waxa ay u sii gudubtay gurigii labaad, gurigii saddexaad, gurigii afraad ilaa gurigii shanaad. guri kasta oo ay tagtana waxa ay ogaataa in guri kasta uu dhib ka jiro oo haweeney kasta ay ninkeeda ay ka cabanayso. haweeneydii waa ay soo laabatay. waxa ay u timi ninkii xakiimka ahaa. waxa ay ku tiri, xakiimow, ninkeyga hayga furin, inaan haysto ayaan rabaa. waxaana soo ogaaday in ninkeygu uu yahay ninka ugu fiican magaalada. ninkii xakiimka ahaa yoolkiisii iyo maqsadkiisii waa uu gaaray oo waxa uu rabay in uu fahamsiiyo gabadhaas in uusan jirin qof dhammaystiran. qisada intaan ayay ku eg tahay. waxa laga faa'iidayaa waxa weeye in adduunka uusan jirin qof dhammaystiran. qof kasta meel ayuu ku xun yahay. hadduu meel ku fiican yahay, meelo kale ayuu ku xun yahay. carabtu waxa ay ku maahmaahdaa ama xikmad ay dhahdo carabiga ay dhahaan dadka carabiga ku hadla oo ah, man araada malaakan baqiya bilaa sadiiq. qofkii doona qof dhammaystiran, qof dhan kasta ka dhammaystiran,
baqiya wuxuu ku haraa oo noqdaa bilaa sadiiq saaxiib la'aan buu noqdaa yacni dadka oo dhan ma dhammaystira qof kasta meel ayuu ku xun yahay qof kasta in ayuu leeyahay هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين